gudoomiyaha cusub ee haatan loo soo magacaabay deegaankani gobolkani Sanaag Saciid Axmed Jaamac سعيد بدناح وصل مقعابي مدحونها الدولة بطلان صوماليا سعيد عبد الله الدني أيها قلب من مدى شلق قلب حيث سوق علي مقالدنا عيلبه قبل كان سناق ساكا أيها لكل من معمل كالدقمدنا عيلبه قبل كان سناق وغريو بوقت الدقمد عيلبه محمد أحمد على السلاد يولبا حبنها كلاء مركاسي معمل كالدقمدنا عيلبه قبل كان سناق وحانا لقوة هالي سيدي الله هرمر لها degmadana ceelbu iyo waliba looga shaqeyn lahaa arrimaha bulshada ee magaalada ceelbu oo wareysna hadalka waxa furay oo markaas isxog wareysigaasi furay duqa degmada ceelbu maxamed axmed cali salaad halka ay xubnaha kale ee maamulka degmada ceelbu gobolka Sanaag ayna duqa degmada ceelbu ay uga dambeeyaan ugu dambeyntii gudoomiyaha cusub ee deegaankan gobolka Sanaag Saciid Badnaax ayaa isaguna markaas u mahad celiyay sida ay maamulka degmada ceelbu ay ugu soo dhaweeyeen magaalada ceelbu iyo waliba si markaas uu la garab taagan yihiin sidii looga shaqeyn lahaa arrimaha bulshada iyo horumarinta degmada ceelbu ee gobolka Sanaag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تولى قبلك أما برسابك أما قدومية مقع سير لوري قبا ونسول وينلا سعيد أحمد كامل سعيد بالله وقوسل وينلا حلكة هذه كم دعاء وياشا قبلك كم دعاء هذه هو على حلكي قبلك دولتي ولا دولة من حدين يوم برسابة ورتبها لكن كوي ولا برسابة على ولا قبلك ولا وكيلك بالحوالة قبلك عارك لك استحالة وعطبها الحوالة يسفيرك يا برسابك هذا الشرعية دي شيء وحال مغاي وسيرك الداخلية يباع وسيرك الداخلية ودشقين بالعاجلين هذا وحال مغاي معمولا وسيرك الداخلية حكومة روح هذا بينا هذا ما قال وحال وسعها أول مرة هو ده حلوين فرصة قول وحلوين وملحوين ووضع بعد كرا وقبر كراوي بعد تعب وقوسوا لوينا وقولكي بسيارة سياشن وقوسوا لوينا تربي بالماركو وسكوتوا برهلال لكن وقولكي بسيارة سياشن وقوسوا لوينا تاسواتا وحال قوسوا لوينا وحاتاي نور غير شغل كرو شغل عص أدار نعي وضياشا كمدا قبلك تجمل عيبو كنتي هذا العيب غير غير شغل كراتاي سار كونها إلى كون الشغلات ملا وكسبوننا تاس وحال وجود بياتي دجمة عيبو ودجمو أنا لا تعال لا شوفنا بعدتي نوصل تاني بيها يعني شوف البرنامج بيشي صدحات تبي نحن كبيشي صدحات ببيع نوصل تاني أنا بيشي أفراد بعد شيء سلالي شوف البرنامج أنت لك هيدور عرفتها أما عدي ميديا عرفتها أما عدي تران أما عدي يشوفها وأم ذكرتها أنت المجال وسيء يكتب بشيء بدل أي بعضاي سلدي وسيء حرب العيلة وسنتاي العيلة ويانا تجن وحكوا كلمة وحوي وحوي وبيع بعض أو بيع فلان مال. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعرفت هاي لقيت وانكي مش صدحات وكنت قليلاتاً عن جمعاء وحنجرنا حفيزكي بدي مغيرات عيبو وحبو غشون قدومية عصور قبل سعيد أحمد شعر في بالماح وهري وعصور منينا كلهم كان آيا لنا
iswaraysi iyo wadashaqayn ujeedkiisu ahaa runtii wax badan baan ka wada hadalnay wax badan baan isla fahanay qaabkii degmooyinka iyo magaalooyinka iyo gobolka guud ahaan ay wadashaqayn loo yeelan lahaayeen si shaqadu ay ugu noqoto shaqo wax ku ool ah oo cid kasta oo hayso ilaa heer degmo ilaa heer magaalo ay u noqoto shaqo wanaagsan oo isku xiran iyo baahiyaha ka jira guud ahaan gobolka gaar ahaan magaalada Ceelbu oo warkeedana uu horey u hayay isagoo oday ah haddeerna mas-uuliyadeeda ay waajib ku tahay inuu ka warhelo si uu wixii karaarkiisa ugu hawlgalo kulankayaga ujeedkiisa weyn inahaas u ahaa gudoomiyaha wax badan baa sidayaasha hore ay iga horeeyaa sheegeen ay u sheegeen baahiyaha joog hadda taagan oo rabaan in wax laga qabto sida isbitaalka oo kale oo hadda deyrkiisu uu muddo soconayay dhismihiisana ay wadeen bulshada magaalada hadday tahay haweenka hadday tahay ardayda hadday tahay ustaadada cid kasta oo ku nool magaalada ay dhismihiisa wadeen intii hadda oo la galay waqtigii adkayd oo biyihii ay yaraadeen oo ceelashii qayb ay jaban bismillahi rahmaani rahiim marka hore shirka waa salaamayaa ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Siciid iyo guddida magaalada Ceelbu baa salaam ilaa laga mahadceliyaa oo saakan kulan siiyay goobtan markaan intaas kaga baxo salaamta waxaan marinay Siciid كلنا نقولي سجوا كلام كسيمي وكوسر وين النوع كلنا هاي لكن إننا نقولي سلوكون سلوية وحنا خلاصنا كهذا حيوان هذا كيو مقالة هذا هو الرئيسيو حاجة مقالة علو مقالة علو ومجالوين أبو بلارن هذا وحي مجال عيل هاي أنهلين واحد لهم وحنا سو مري دولة بدن بنوتمي دي وسيرتاي هذه تهاي الدنيا بين قلب كلام عن ينا هذا نالكلام كلام أو ينا تاجن وقبل يوم الأول فرنسا عسوتالك أنا سلك كوا رئيسية هاي عسوتالك سجع حب بن سارية ويودون كهذا الحنونا كسعودة حنونا يربطي إلى أنك هايو هذا نعلم بوح وديارسن أما يو سوماليا عن استاندارن أما بطلان بهذا الوحي عن استاندارن أما جو أما دموج ويقولون بأنه واحدة ندعمين هذا نعلم بمانتا واحد ديارسن ما يجفتو قولون بأنه بسيط وشوك برستي وليد دولة دعمتي يحيلها عالم الأمين مهينو مركو حجعلنا إن شاء الله سوتاك إنك عن نلتسيو هديت هاي قايوين يهديت هاي بسمي سوى قبيو بغلطي باللحدة مولي soo martay ama ku jirto ama halka ay hadda taagan tahay gabadhan isagoo dhammaan maaha waayo xoolaha ka muuqda deegaanadii ay maaragtay dee la simeyd xoolaha inay dib uga dhacday alxamdulilah hadda dee waa iska soo fiican tahay oo kulli waa soo kambaysaa arrimaha horumarinta ama arrimaha bulshada oo deegaanku u baahan yahay waxna qaarkood ka bilaabayeen baan rabnaa maadaama aad tahay mas-uulkii koowaad oo intii xilka loo magacaabay noo yimi oo aan kaaga mahadcelino degdega aad noo soo degdegtay inaanu wax kaaga sheegno adiga hogaalka dowladda laga gudbisiyo dowladda dee mas-uul wakiil adigaa nooga ah deegaanka uga ah aad nooga gudbisid insha allah intaas ayaanu doonaynaa inaanu kula wadaagno waa ognahay
ceelbu adeegyadii dawliga ahaa dabaqada maqan yihiin dhammaan hadday wax ka bilaaban yihiin wax saas oo weyn maaha laakiin waa ka maqan yihiin sababta keentana waxa weeyaan dugaca waqtigii ama degmada heli lahayd hadday degmo hesho oo degmo ay maanta tahay ku magacaaban tahay dee adeegyadeeda rasmiga ah oo dawliga waa heli lahayd laakiin waxa ka hortaagan waa arrintaa ah degmada iyo wixii lamida الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore gudoomiyaha iyo gudida magaalada Ceelbu dhammaantiin waxaan ku salaamayaa mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa dhawahay idinkana waxaan leeyahay soo dhawaada رئيس الولاية السعودية إسبتار كيونا المجالة يوريدا وروتا رجال يلا أنت كلاء محمد على سوق جاي كتاب إنك فاعل ستو وسوق من في عن مريا وعلى نقول الدنيا هنا بلاغه وسيد بخسها بدل الله بلاغه وقول الله قول تساعد الله horumarka iyo waxaan ogaa mustaqbalkeeda inta ka dhiman kii loogu gaarin lahaayno shuruudaha ku xiran magaaladan inay degmo gaadho waxaa ka dhiman guriga degmada oo aad bilowda annaguna aan kaga gacan geysano iyo weliba ciddii kale oo aan ismaan naxbaad gaarsiin kartaan waxaan jeclahay magaaladaas inay noqoto magaalo mustaqbal fiican leh magaalo cilmigeeda iyo inta ay la eg tahay baaxadeeda loo tixgeliyo iyo dhismaheeda dhamayska tiran oo shuruudihii la rabay inay gaadho buuxiyey hadday bulsho tahay iyo hadday tahay dhismada buuxiyey inay ku hesho wixii ka dhiman inay ku hesho waa rajeynayna waxaan rabaa in aad horumarka ku dartaan sidii aad u samayn lahaydeen contribution cashuurta sidaas iga qaadi lahaydeen mariga anigu cashuurtaas ha noqoto gobollo kale iyo meelo kale aada laakiin sidii aad u lahaydeen idinkuba awalba waa iska qaadi jirteen wax u eg laakiin magaca cashuur bay ahayd waxa hadda aad wax ku wadaan oo dhan waa contribution laakiin waxaad u bedeshaan inay noqoto mid sharci ah oo ah cashuurtii waanaguna aan markaa idiin soo samayno wixii aad uga baahan tihiin nidaamka cashuurta runtii magaaladan waa magaalo weyn waa magaalo u baahan in wax badan laga horumariyo waxaan rabaa anigu markii halkan ay noogu yimaadeen waftigii ballaarnadu guddoomiyaha baarlamaanka hogaaminayey waftigaas maalinta ay noo yimaadeen lacagtii aad bixiseen 7,000 iyo weliba dheeraadka ahayd محمد توقف بأسماء العطا يعشور بيشن عشور وقت سياسة ورسي يأخذ سكر العشور بسي وعلى الله دي عشور مغطوه أبناء وسارتان ماردا وسارتان أرسل وسارتان كأجر كي يحسابيه وسكر سوتي وسارتان أبناء من بيسرق والله waxaan rabnaa wixii ka dhiman oo tabaysaan hadday shatiyadii tahay iyo hadday tahay wixii kale oo magaaladu ay u baahan tahay oo wax lagu dhaqaajin karo inaan idinla wadaagno waxaan insha allah idin leeyahay dadaal baan isku ognahay odayaasha hooyooyinka bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan jeclahay inaad shirad waa markii ugu horeysay ee gudoomiyaha cusub Siciid Badmaax uu soo gaaro degmadan Ceelbu gobolka Sanaag uu la kulmo maamulka degmadan Ceelbu gobolka Sanaag isagoo 2 maalmood ka hor lagu wareejiyay xilka gudoominimo ee deegaanka gobolka Sanaag uu ku wareejiyay gudoomiyaha hore gobolka Sanaag Ali Xuseen Soomaali wa Ahmed Abdullaahi Ciise Axmed Cashuur degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag